عفوا ندوغي با iga go'ay maxaa yeelay wadankan Jarmalku waa iska wadan maartay meelaad aan joogo meel dhul buuraley baan joogaa marka raali ahaada hadalka meeshiisii ku soconaya marka waa qeybtii labaad way ayaan dhihi karnaa insha Allah taala la share garay dhamaan inta online ka marka Sheikh Xasan Barsane nin taariikh leh buu ahaa jabhadana magacaas bay ku socotaa nin taariikhdiisii aare wax ka horay aysan jirin nin taariikhdiisii ay soo bilaabatay 91dii nin taariikh dambe uusan lahayn ama dagaal uu dalkan Soomaaliyeed bulshadu waxa loo baahan yahay war umadu waxa la rabaa qof taariikhda wax ka galo inuu ka dhasho loo baahan yahay taariikh ahaan beesha aniga aan ka dhashay mar rabo aaw inaan ka hadlo digil inaan ka hadlo mar rabo aniga aawayto digil kama hadlayo waxaan ka hadlayaa gaal jecel baan ka hadlayaa Sheikh Xasan Barsane nimankan haddeertan jabhadan ciidankan waa ciidan Sheikh Xasan Barsane la yiraahdo waa guuto aan nahin waa kuwa ilaa ay waqtigan hadda la joogo deegaankaas xureystay ee ciidamadii cadawgii argagixisada ku xureystay waxa intaas u sii dheer gaal jecel madaxweyne baalka muxuu ahaa lafta gareeno astaghfirullah gaal jecel ha u malaynin Soomaalida nooceed inuu u dhaqmo uma dhaqmo wallahi nusru dhaqmo billahi taala dad hal meel hal waday wada marayaan waad aragtay war ciidamada hadda la sheegay gorgor la yiraahdo xaramacad la yiraahdo ee Soomaaliya gaal jecel kala bar waa gaal jecel dhammaantood magaalada Muqdisho gudaheedii bay waxay ku qabteen shir jaraa'id waxayna sheegeen haddii talaabo taako loo soo qaado wala weyn xamar inay ku bilaabi doonaan wax allaale wixii afka mayl ku hadlay macna heerkaas la gaaray macnaheedu waan kaaga digaya marka sheekadii waraabadowdii baa wadnayo nin baa waraabadow hadda kor la soo dirsay wuxuu ku yiri oo dad adkayso buuriniyo aruurtii aan laga qaadin meeshan waraabadow baa ku nool keentan waa la degan yahay waa meel halis ah masa oo dhig jala uma siineen ilmaha kii ugu yaraaba 6 habeenimo laga dafay markaasuu ka daba orday markaas habeennimadii meel walba ka dhac rafaad iyo dhibaato maxaa dhacay sheergaray barnaamijku waa ay tamay ay dhalay waraabadow ma saambaad ii gashay tollaayay subaxdii buu salaamay salaantii ka qaado diiday markaas wuxuu yiri shalayna waa ood xumeed xalayna waa ood xumeed haddana waa afrantahay buu yiri shay madarhad markii koonfur galbeed la dhisaayay waa dhismo xumeedeen maanta alaaca looma baahno bulshada wada dhalatay inay israasatana waa wax diini ah dadku wada dhashay dhalashada sinjiga waa maguuraan gaal jecel anu ila dhashay haddaadan horay u ogeyn oo la yaab ay kula tahay caawa ha ku cadaata gaal jecel anu ila dhashay waa isdagaalnay waa sax qabiil ama ummad aan isdagaalin hab yaraatay ma jirto waana garab taaganahay jabhadii waran maatay way diyaarsan tahay ma fahmtay waran maatay baa diyaarsan beesha garan way diyaarsan tahay ima walaalahay shanta caleemood waxaan leeyahay shanta caleemood waxaan leeyahay waliba shanta caleemood isma saarno beeshu hubeer iyo beel kale magaceeda aanan xasuusnayn ayaa lafta gala u nacamleynaysa waan ogahay lafta galan ahdi malahan balan malahan dhaqan malahan xishood malahan garasho malahan asluub malahan wax uu leeyahay malahan anaan idinkaga garasho badan waqti badan yani ha isaga lumani beesh walaalaha shanta caleemood waxaan leeyahay nabadgelyo buuxdo meelihii aad lahaydeen goobihiini ku joogo gaal jecel tallaabidii ma soo qaadi karo annaka qabsanayno unsur akhaaka dhaaliman aw madluuman annaka u joogno haddaad maanta la yaaban tihiin barta dabar waa maqaaro samaalo waaye garro waa gardheera samaalo waaye
tuni waa ciise samaale barta digil boqolkiiba 99 waxa waaye waa ilmo samaale ku jiraan laakiin isbahaysid tunkan idinku sidnay sambuuska maartay hilibka la geliyo oo kale gudahaad noogu jirteen sidaasaan idinku wadnay hadda waan idin dhignay wallaahi waxba iskuma darsanayn oo billaahi waxba iskuma darsanayn ma faham oo tallaahi waxba iskuma darsanayn waxa isku darsanayno oo aad naga sugaysaan haba yaraatee ma jirto hubka aad u soo dirteen yaa aqbali weynan waa qaniimo waana lagu xisaabtamaya wallaahi oo billaahi oo tallaahi hubkaasaa lagu xisaabtamaya sawir la soo galo meel la istaago waxba ma tarayso yaa aqbali weyn waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ciidamadii u dambeeyay way soo gaareen meel walbayna isaga imaadeen meel walbo ay isaga imaadeen dowladda Soomaaliya ciidanku u dhisay waa gaaljecel min raas kamboon raas aseer dhaxdoodii gaaljecel way waxa ciidan ah oo socdaad u jeedaan waa gaaljecel hadday harama cad noqon lahaayeen hadday noqon lahaayeen cid walba waa gaaljecel way waxa socdaad u jeedaan ciidanka soo waa gaaljecel waa hawiye dagaalku hadduu bilowdo waxa soo gali doona hadiiba dagaal hadda wajigaan hadda aad ku wadaan waxay noqon doontaa miriflo oo dhan hadduuba soo socdo oo maana dagaalkan isku raaco aniga beesh eelay walaalay fariin baan u diray dad gob oo nasaba oo ka joogaan ay lafta gareen wax loo dagaalama ma ahan wax lagu dagaalamo meesha ma yaalo gaaljecel wiligiisu deganaan jiray jigri kulow isbaaro ku qaadan jiray niman oday cad liiraado oo meesha ku nool waa la yaqaan taariikh bay leeyihiin ma gaaljecel hadduu soo dhashay yaa ma yaaq biri weyn intii cimrigeenu uu jiro oo aan nooleen oo awowyaashan ay noolaayeen taariikhda buugga Greek anoo joog ayaa waxaan galay meel oo yaani muxuu ahaa maartay gobolada Soomaaliya qeybta koonfureed oo akhrinayo war Sheekh Xasan Barsana deganaan jiray meesha ayda ma taariikh Sheekh Xasan Barsana ka horeysay baad haysaan ma haysaan maya ma lahayo ma haysaan mana keeni kartaan gaaljecel deegaankan asaga iska leh annakana waa ku ognahay sidaasoo u deganaan doona ilaa buunka qiyaamo hadduu dhaco cid walba meeshii ilaahay u jiheeyay bay aadi doonta bifam ilaa buunka qiyaamo meesha sayida gaaljecel baa iska leh asagana deganaan doona ima walaalahay digil shanta caleemood waxaan leeyahay shanta caleemood boqolaal sano la isla noolaa ummaddu way isdhexdegi jirtay dhulkoon waa la isla leeyahay gaaljecel ma degano yaa aqbali weyne cid idinka akhrisanaysa walaalahay malahan bifam walaalaan nahay ehel baan nahay ismana saarniidiin shanta caleemood dhibka beesha hubeer ee shanta caleemood yani muxuu ahaa digilka ah dhibka ugu weyn beesha hubeer xaggeedii buu ku socdaa beesha hubeer waxaan leeyahay hawaal barbaarna ma artay muxuu ahaa yaaq bari weyne ma noqonayso bifam hawaal barbaar yaaq bari weyne ma noqonayso mana la isku furi karo ilma adeeryeelow haddii hataa digilka inaad ka baxdaan haddaad rabtaan walaalay reer hubeeraan leeyahay digilnimada inaad ka baxdaan isbahaysiga digilnimo inaad ka baxdaan haddaad rabtaan lacalla maybe lagaba yaabo inaad ka baxdaan haddaad rabtaan si nabad ah ku baxa hubeer dad sharaf leh waaye waxay degan yihiin hawaal barbaar dhulkaasi baydhabo dhulkaasay degan yihiin qeybta kalena kismaayay degan yihiin waad aadi kartaan laakiin never ever nin af maay ku hadlo wallaahi inuusan yaaq biri weyne iyo daafeed iyo afgooy iyo shabeellaha hoose taaka ka mid a inuusan soo istaagayn wallaahi inaysan dhicin taas waa diidnay annaka waa diidnay ilmaha hadda yani muxuu ahaa qaangaarka aan ahayna waa diidan kuwa hadda kadib dhalan doonana waa diidan dagaalkaasna mid loo kala hari doono ma ahan cid walbay soo gale cid walba ayay soo galeen dagaalkaas asaga ah fidnadan waxaan soo jeedin lahaa oday Soomaaliyeed baan ahay nin waxgarad baan ahay nin tabarta lafta gareen og baan ahay tabarta lafta gareen nin og baan ahay nin lafta gareen la soo shaqeeyay dadnimo xumadiisa og baan ahay fulaynimadiisa og baan ahay bilaba inuu yahay baan ogahay colaad yuusan idin gelinna walaalahay mirifle nabadiina deegaanadii oo marka hore ilaahay idin calaamaday idinku abuuray deegaanadii ku ekaada mifam deegaanaad leedihiin ku ekaada deegaanadiina maanta si wulub qaawnaasho way hadalkayga waa hadal qaawnaasho ah
markaan rabo inaan runta sheego hadalka dharkan ka dhiga ma fahamti tabartiini waad ogtihiin qori dugow loola cararo waa taqaaniin waana isnaqaanaa waana is ognahay waana is xaal ognahay ma fahamti maahan gaal jecel xawaaya yani geel maxaa la dhihi jiray geedka burada la yiraahdo inuu ku rugto wax geel ku rugto ka weyn baa la yidhi buro ma fahamti gaal jecel wax la daandaansado ka weyn xisaabtan intuu kaa jira kismaayuu kaa jira intuu kaa jira hiiraan xaggeedu kaa xiga intuu kaa jira etoobiyuu kaa xiga xamar buu kula degan yahay maaragtay muxuu ahaa shabeellaha hoosuu degan yahay war heedhe waa qabiil samada keliya samada xaggeedii baa idiin bannaan gaaljeel samada xaggeeda ma jiro laakiin inta kaleba wuu joogaa waa kaa qaaday ibraahim ibn ibraahim ma fahamta walaalaha raxwey marka waxaan leeyahay walaalaha mirifle waxaan leeyahay walaalaha isbahaysigii aan idinkula jirnay waa ka baxnay annaka dhalasho ma wadaagno horeyna waan u sheegay waxaan wax ummadda yacni carruurteennii iyo awowyaasheenii waxyaabo ay soo sameeyeen bay ahaayeen inaan isbahaysi noqonno isqaraabaysanno daris wanaag aan samayno isku qaraan aan noqonno deegaan baana kulmiyey dhalasho nama kulminin ma fahamti dadkuna in runta loo sheegaa habboon digil maxamed iyo mirifle maxamed iyo mirifle reewni war waxaas wax jira maaha yaa rasuulallah anaa meel walba talyaanigaan tagay buu waqti dhan baan baaray talyaaniga weliba waxaan u yeertay turjumaan baan u yeertay mifan nin turjumaan ah oo jareer ah afka talyaaniga yaqaano cabdullaahi la yiraahdo ayaan u yeertay library weyn oo talyaaniga ku yaalaan tagay abtirsiimidii baan raadiyey buuggii generaal liigligatana waan qaatay horeen u sii qaaday wixii waa la baaray ummadda meelay iska soo gasho hab yaraatee mala waa masaari ku nool afrika oo laakiin dhalashadeedu ay carab tahay waa tunisiya carab ku nool dhalashadeedu carab tahay waa baashi liibiya oo carab ah oo deegaankii afrikaan ah qaabkaasa loo wada noolaa istaraatiijiyadahan haddaan runta sheegnana 8 waxaa sameeyey oday aniga awowgay ah yah oday aniga awowgaygii 6 baa sameeyey aniga awowgaygii ismaaciil ahaantaydii 6 ayaa sameeyey uu yidhi war 8 ninba isu u timid markaasa wuxuu sameeyey wuu kala saaray 8 iyo 9 ayuu kala saaray idinka 8 tihiin socda buu yidhi waa awowgay waa shanaad waa la yaqaanaa taariikhaan haddaa u baahantiin weliba ayadoo qoraala waan keeni karaa haddaad u baahataan idinkana 9 tihiin xagga dega dhulkii baa la soo dejiyey bulshada etoobiya xaggeeda laga wada yimid markii hore deegaanadii waa loogu soo horay annagaa ugu soo horeynay waa la idiin dejiyey waa taranteen alxamdulilah isbahaysi baan noqonay laakiin markii aan aragnay dhaqan xumadiin markaan aragnay aqoon darrada qof ka damqanaya aysan lahayn dhibaatada iyo rafaadka digil lagu hayo markaan aragnay go'aan baan qaadanay go'aan adag baan qaadanay xaqiiqdii ma fahamtay haddii digil iyo mirifle aan nahay maxaa xildhibaanadeeni 50-50 u noqon waayo kadaabiintaan laga hay maxaa 50-50 ay u noqon waayo xildhibaanadu ma nasabiid baad i dheer tahay ma dadnimaad i dheer tahay ma iga aqoon yahansan tahay ma iga taariikh weyn tahay waa maya anigaa ku siday tukaa kugu siday maanta waan ku dhigay ilaa hadda garasho ma lahan nabadoonnadooda garasho ma lahan malaaqyadooda garasho ma lahan siyaasiyiintooda garasho ma lahan waa sidii ulaa'ika kal ancaam bal hum adallu sabiil khalaas wax kaloo garasho yacni garasho ay leeyihiin ummaddan maxay dhibsatay inay isweydaan ma laga yaabano ma ka sugayn anakan war maxay dhibsadeen dadkan maxay la godoodeen maxay maamul doonsheelistid u samaysteen waa isweydiin waayeen mar haddaa isweydiin weydeen war annagana go'aan baan gaarnay go'aankeenina inaan ka mari dhalino wallaahi waa nagu go'aan waay wallaahi oo bilaahi inaan dib dab wax isugu darsanayn haddii hataa maanta sanadkan haddii la awoodi waayo doorashadu soo socoto ilaahu tan damba may gaarto arrintan tabtanay ahaanaysaa tabtan ay noo ahaanaysaa dhalasho ma wadaagno wax iskuma darsanayno miriflanimadiinii ku ekaada deegaanada waa laisla degan yahay
dhulka aad deganta ilaahay idin barakeeyo ima dhalasho haddii la yidhaahdo gaal jecel baa ixigo habar gidir baa ixigto abgaal baa ixigo murusadaa ixigo wax la qarinayo qurun baa ku jiro xaqiiqdan ku waadayna maqaaro samaadan حوادنا يحيو مايلا سمالي ما فهمت مايلا سمالي سونسور سمالي إير سمالي قردير سمالي قرجنت سمالي وراني حلقة سنادي هاي واي ستان واح إلهي سوك هندري هم يراتي مجرد ما فهمت نبات كجوغ دوكاد ليديهن تلابه دا سوق دان دقال خبر قيدوا سوق غلي أبقال نوو سوق غلي ديقو بيما عن ما فهمت والله بيدبا يا لسويدين دونا بيدبا يا بقول بالسويدين دونا هدي درهاد أنيق قرب كوها هدي درهاد أنيق قرب كاغا تاغنا مانتو وكبا سياسة دهان استراتيجي دهان قفكي هوشا ولي دفاعا واتكا كنجري أيانها مانت لكن قوان كاس والله وبالله تالله مقا إلهي وحكوين ملا واقع وح الله لوحي مرفلة إلهي يقصو ديب إلهي وإسين wax dambo oo aan wadaagayno hab yaraata ma jirto digil baanahay maartay muxuu ahaa maartay dhalasho hawiya ixigo hawiya wax la qiibsanaya walaalay hawiya waxaan leeyahay welcome soodin baan leenahay gobolka doy soodin buu leeyahay gobolka shabeellaha hoose soodin buu leeyahay mifam haddii talaabo gobolka shabeellaha hoose aad soo qaadaan wax kaloon ogahayna waa jira laakiin hadda ma sheegay wallaahi oo billaahi arrimo culus baan ogahay weliba baraawe wixii ka soo socdaan ogahay laakiin kama hadlaayo wax baraawe ka soo socdo waan ogahay ma ka hadlaayo haddii wax lala yaabo dhici waayana dibdan waxba hay weydiineen waxaan leeyahay marka digil dadnimadiina aqoonsada nacas dhalay baa tihiin waryaa see ku oggolaateen in dadnimo xumo intaan gaarto dayuusnimo iyo dareen la'aan intaan gaaro oo digilka markaad dib u fiiriso yaa qaarkiisi digilka isma saarno digilka qaarkii markaad fiiriso xayaatada aad ku jirtaan waryaa yaa kuu qoray inaad 61 xildhibaan 20 xildhibaan lagaa sii waryaa yaa kuu qoray in aad weydo gudoomiye baarlamaan Soomaaliya federaal lagu diido waryaa haddii koonfur galbeed maamulkii madaxweyne mariflu ka noqday maxaa gudoomiye baarlamaan kuu diiday maxaa madaxweynaha koonfur galbeed ka noqday marka hore kuu diiday dib u xisaabtan taariikhda soo maray dib u xisaabtan maxaa nagu kalifay inaan deegaanadan kala jarno maxaa nagu kalifay inaan dastuur diyaarin maxaa nagu kalifay inaan shirar isdaba joog ah maalin iyo habeen aan kala har lahayn inaan qaban maxaa nagu kalifay dhaqan xumada garasho la'aanta gunnimada dayuusnimada ay nugula dhaqmeen baa nagu kaliftay maxaa loo baahay xisaabtan gudoom baarlamaan ma lihid madaxweyne koonfur galbeed ma lihid gudoomiyihii baarlamaanka koonfur galbeed ee cali siciid fiqi la dhihi jiray wuu laalan yahay waad aragtay waryaa ma lihid gudoonkii baarlamaanka lagu darsaday haye maxaa marka isbahaysiga ka faa'iiday baliisha wasaaradii gaashaandhigii wasaaradii number A waa laga qaatay haye dayuusnimo qofka dayuuska ajana ma galo digil waxay u badan yihiin dayuusiin bay u badan yihiin waxaan leeyahay damiirtiina ha shaqayso dadnimo iska raadiya arsaaqdiina ilaahay baa hayo ma fahamtay ciddaan sambuuska gudihiis wax ku jira ahaydo taariikh ahaan annaka magaceena isticmaali jireen hal nin oo taariikh leh oo haddii maanta saqaawudiin uusan marifle ahayn haddii maantayto uusan ahayn ninka la yidhaahdo iishag dhagaxtuur uu yahay dir biimaal oo haddeerta mariflema loo sharciyeynayo macnaa dir ahaa dhagaxtuur ninka la yidhaahdo idriis abtagtara soo qaaday idriis abtagtar nin dir ah waa la yaqaanaa waa nin gaadsan ah waan ognahay asagana wuu is og yahay ma fahamta haddii baarbe uusan maantayto saqaawudiin baarbe dheere haajo dheere war dadka kaa dhashay fiiri dib isugu fiiri dadka kaa dhashay dib u fiiri awowey macalin xasinow fiiri macalin aadan fiiri aw sheekh xuseen fiiri haye
يا أول ناس فيري أول ناس فيري هيه ديبو فيري تدك التاريخ اللي ملاقمت على سيابة فيري ملاقمت على ديك فيري ملاقمت ابد ركو فيري تدكاسا كهذا شوريا هذا دقيل قربوا وكسي درين تاريخ بقر كي ما رمحوها إيش هذه أن نينكي بقر كايو جلدي قام يسمع حسوس تفيري هيه بقر تويدي قرب فيري maxaa umudan taariikh lahayn 91 soo bilaabatay ku daba dhigadi umad mar hore adiga aad samaysay ilaahay ka soko oo gacantada ku samaysay ayaad maanta wax ka sugaysa waa dayusnimo waxaan leeyahay dagaalka yaaq bari weyn mid loo kala hari doono ma gaal jeel hal frame u faraya gaal jeel horta markuu ugu horeyso waxaan ugu mahadcelinayaa in saraakiishooda ciidanka iyo maartay muxuu ahaa xildhibaanadoodii iyo wasiiradoodii iyo gobol kasta uu joogo inuu isku mowqif noqdo waa waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay waa soo dhaweynaya garabkiini baa nahay waa idin garab taaganahay wallaahi oo billaahi tallaahi deegaan dabro joogo ama garro joogo inaan laydinku soo duuli karin taas horta waa idin ballan qaaday taas waa idin ballan qaaday waxaan haddeertaan idin leeyahay gaal jecelkii Kismaayo joogay gurmudka ahaa wadaday soo mari lahaayeen waa diyaarsan tahay wadadii la soo marsin la waa diyaarsin ku beledweyn aniga shaqo ku mari idinka keenay haduu ilaahay ilaa xalay ilaa shalay alxamdulillah ciidanka soo gaaray ciidamada gorgor oo dhamaantooda goostay oo toos isugu shubay jiid dagaalku waa ku maadsantii aniga laakiin fariinteedu maxay tahay hubkaas baakaamida la qabsan doono ama gacanta lagu dhigi doono dabar rogoto waxa dhacay waan ogahay ilaan aqoon durugsan baan u leeyahay hubkaas qiibtii waran maataay hal iska diyaariyo waran maataay waxaan halkan fariin ugu farayaa daahir amiin jeeso iyo afhayeenka jeelle dhammaan waxaan leeyahay ilma adeeryaalow hubkaas insha allahu tacaala hub fara badan baa soo socda oo laftigan soo diyaariyay oo yiri jabhada yaani muxuu ama maartay muxuu ciidamada Maawsleyta Sheekh Xasan Barsane warta magacay wataan waa ninkii Talyaani xabsi ku dhax dilay way ku dhintay way oo dalka xuquuq ku leeyahay warigiisi uu deganaan jiray afgooyo ay wax kula deganaan jiray xaqiiqadan wax buu ka deganaa afgooyo xaqiiqada soo sheego waa beehi uu ka dagaalamay bay dagaal uu ka galay waa sax ma fahamtay waxaan leeyahay marka yaaq bari weyn iyo leego ballanteena waa meesha iyada إما ولا لها يدقل وحن لها اسكو أف عن نغنو اسكو موقف عن نغنو معمول أو قالجال وسنديدنين دول شمال استيت سراكيش قالجال شلين وضع الليني حلبانو ضعيو إلا دور حلبان شلين وضع الليني وإصلاح ضلين هاي ديارو يهين إلا ددجيو معمول كدول شمال استيت مدحوينو كيا هاي دقل كحيجين يقدم برلمان ولا كلا قاضي مدحوينو كحيجين وحال السينية باش بيمال قدوميها برلمان كان هوية اسكالي ولو قال جار على السينية انت كلنا سين نظامسن او مصلحة كجرته او وناكسن ايا لو كلا قيبسن دون هدو إلهي إيفا هتعدي قال جال وقرتو قدوميها برلمان هدي أبقى لو قرتو هدي مرسول لو قرتو هدي هبرقي إيفا او يدو ديقان كده جنين وانا سود الجنين وانا وحلالتين نساعده بيكب الله بفهم انتان قول له نولان لهين انتان عوان وحكو درسان لهين انتان وحان قرش لهين وحان قراد لهين انتان وحلا وذاقي لهين وحان نوفيان انان ومدى النولش يجيريد التغانا وحكو درسان وحان مغلج وحان قرآن كريم بحوليه فيها لا يموت فيها ولا يحيى النار قديدا كوغين الدنيا دي بانكو عرقني وبلشو انا نولين ما نولا دادا نولين ما دمستاي كرنا يا never ever عليه ولا غير هرجال جال كرب كنا نتاجنا never ever ما ندعي دونتو هدو إلهي هيل يهو دقالة وحكستو لوغا بعضو يا دقالة كستو لوغا بعضو ولو أروكو الله مقع باشا الدبر والله ديار مرونا ودي بينا ودي بينا ديار مرونا ديغان كاسا نغات كيو إن شاء الله تعالى wax koonfur galbeed la yiraahdo ma jiraan koonfur galbeed
waxay ugu dambaysay sharciga koonfur galbeed wuxuu baaba'ay 19kii bishii December 2022 mifahmt waxa hadda socdo waa nimin magac ani aan bixiyay RRA la yiraahdo ani aan bixiyay way waxa lagu socdo magacaas waxa hadda socdo insha Allah taala magacaas isaga ah waa la soo afjaraya isqaad hadda ii muuqdana wallahi baydhabo gacan ka bixirto wallahi oo billahi tallahi baydhabo ayaa gacan ka bixir rabto soo socda leeyahay wabillahi tawfiiq والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.